geliyay systemkan system noo shaqeynaya ma yahay marka iyagoo marka aqoontii macluumaadka haysta ayay dadkooda ka dhaadhiciyeen kabacdiba markaasi lagu go-aan qaatay marka Soomaalidu tendency waxay leedahay qaarna in federalismka ay support gareeyaan mar walba iyagoo laga yaabo in aysan sababta u support gareeyaan aysan ahayn tii saxda ahayd qaarna waxaa laga yaabaa inay diidaan iyagoo aqoon u lahayn federalismka laftigiisa darsinna baranina akhrina waxa federalismku yahay waqti marka waxaa is leeyahay dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin laba group waxay u baahan yihiin anaga Soomaaliyeed laba group waxay u baahan yihiin in dadka lagu wacyigeliyo lagala hadlo loo sharxo hadda waan qaadanay federalismka wadano of the land hadda yani nidaamka loo hadda Soomaaliya ku wada shaqeyn karta ma jirto sababtoo ah systemkii ka horeeyay oo ah systemkii centralized administration oo ah yani awoodda gacantu ama qof shakhsi ah ama degmo ama gobol ama yani ay ugu jirtay waxa uu noo shaqeyn waayay fahmt federaal qabiil ah ma shaqeynaya marka fiiri waxa oran federaal qabiil ah wax kasoo dadku isku raacaan fiiri dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho weeye say doonaan isugu raacaan waxa ay isku raacaan oo ay doortaan ayay tahay in la taageero in anagu u fakarno oo federaal qabiil weeye oo waxa la yiraahdaa paternalistic view of government dowladdu inay tahay sida waalidkii oo kale oo ilmaheeda ilaalin ana ma isoo arkay waa fikir adduunka khaldan weeye mana shaqeyso hadda Ethiopia wadanka Ethiopia la yiraahdo federalism bay qaateen 1991 way ku baraareen way ku horumareen federalism wuxuu ku beesgaraysan yahay nationality qowmiyado dowladda Soomaalida Ethiopia dowladda Bishangulka dowladda Amxaarada dowladda Oromada dowladda Southern Stateska anoo meeshan qabiil la kala nahay iyo clans iyana waxay leeyihiin qowmiyado leeyihiin wada shaqeysay marka dadka diidan oo ku xajimada federaalka ayaa u isticmaala قبيل فلان قبيل ما هذا فيري أنا أقول ما بدك ساموستيجا عبد الله أنا كنت وأخذ بدأ هذه كم هاي لسعانه فاتحكم يتجين فاتحكم سنة خالص أنا لسعانه أنت وشرت قال حيا نقرنا إننا ودارته هذا فاتحكم سوي علينا إن شنطة كسوي علينا لهذا كواسداس قال حيا degmo qura ahna inaad tirado diilin hala dhaxmariyo reerkaasi nagu reer ma ahayd kala naga maraa yani qabiilaha Abduwali budna ma dhisin iyadoo dhisan buu iibid madaxweyne u noqday dhulka gaalkacay laascaana dhulka anigu aan imid madaxweynaha ku dhaartay rasuulka aan ku dhaartay kamid tahay degmo kamid ah weey ma fahamtay laakiin anigu kuma dhaaray inaan madaxweyne u noqonayo xarar dheere iyo hobyo iyo galmudug ma fahamtay dhageyso ma anigu maana dhaaran kuwaas aan u dhaartay kuwaas iyana taa inaan ku hayta anigu inaan u shaqeeyo soo celinayo dadka reer laascaano waxay qaateen inay maxaan idhaahdaa Somaliland ka mid noqdaan oo calanka Somaliland ma ooli kareen haddaan dadku raali ka ahayn miyani markaa paternalistic view adinka ka dayrineysay ahayn inaad tiraahdo ma qaadan kartaan anaga nagu soo noqda waxaan raali ka ahay berrito dadka jooga laascaano in afta laga qaado la yiraahdo ma Somaliland baad rabtaan Puntland baa rabtaan ma waxaad noqotaa inaad gaar u tagtaan baa rabtaan anuu maanta raali baan ka ah sidaani raali ka noqdashaa arrintaas waxay noo soo gudbinaysaa khaatumo aan ka dhex galo dadka ku doodaya Soomaaliya qabiil federalismka way la soo waxaa laga dhisayaa hadda مثلا dowlad goboleed jubbooyinka ma qabiil baa daarood baa ka mid ah hawiya ka mid ah dir baa ka mid ah sheekhaal baa ka mid ah yani mushuguli baa ka mid ah جروين باكر إكسترا كمبيدا سيدو كده حلقة السيا مامور ساوث ويست يعني كونفليكت بالصومالي ضرب باكر دقيقة من رفلا كمبيدا الهوية كمبيدا مركب عرفت الساوث ويست كمبيدا واحد ساوث ويست واحد سو ما دقا يدقا عيل بردقي سو ضرب ما دقا يا لقات waxay nagu celisaa markii ololaha ku jirta khaatumo waxaad ballan qaaday inaad gobol dhigayso khaatumo ma oran